ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 3 bisha 8 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah maxaa looga hadlayaa kulanka xasaasiga oo maanta yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waa kee wasiirka kaliya ee diiday shirka golaha wasiirada tan iyo markii la kala diray xukuumadii ra'iisul wasaare Khayre faahfaahin ka soo baxaya gudoomiye ku-xigeenkii degmada Walaweyn oo qarax lagula dilay gurigiisa Masar iyo Itoobiya oo sare u qaaday rajada aqoonsi ee maamulka Somaliland si hayaha ra'iisul wasaaraha dalka oo xariga ka jiray macadka sare ee daraasaadka amniga iyo shirkadda TikTok oo la timid xeelad looga badbaadinayo in laga mamnuuco dalka Mareykanka intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar hayloobin inaad gambalelka furato si aad rukuumad adeega joogtada ee janalkan muuqaalka laag saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada sheer gare oo la wadaag saaxiibada haatana warkiyo fidsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulan kamida fadhiga toddobaad iyadoo ajandayaasha hor yaalla uu kamid yahay muddo kordhin gudi kulanka oo ka dhici doona xarunta kumeel gaarka ee Villa Hargeysa ayaa looga doodayaa sii wadida dib u eegista miisaaniyadda 2020 iyo ka doodis iyo u codayn wax ka bedelka sharciga number 75 qodobkiisa 10aad ee ku saabsan muddo xileedka gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka gudigan ayaa la dhisay July 2015 waxaana sharciga lagu dhisay lambar 75 ku cad in muddadiisa ay ku ekayd baarlamaankii hore 2016 iyadoo markaas ay ahayd in uu soo gabagababo una gudbiyo tallaabooyinkiisa baarlamaanka hore gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa hadda dhisan muddo 5 sano ah iyadoo arrimihii loo xil saaray aysan waxba ka fulin waxaana la filayaa in uu sii jiro lana jaan qaado baarlamaanka saddexaad waa kee wasiirka kaliya ee diiday shirka golaha wasiirada tan iyo markii la kala diray xukuumadda Khayre wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaan marnaba ka soo muuqan shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya tan iyo markii kalsoonida lagala noqday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre sida ogaday janalka dabagalka wararka warar lagu kalsoon yahay oo helay janalka dabagalka wararka ayaa sheegaya in wasiirka amniga uu ka maqnaa labadii shir ee qabsoomay kadib riditaankii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waana wasiirka kaliya ee shirka diida marka laga reebo wasiirro kale oo farsamooyin iyo howlo kale kaga baaqday shirka xogtaan helna ayaa sheegaysa in wasiirka uu madaxda qaranka u sheegay inuusan ku qanacsanayn qaabka loo rido xukuumadii hore iyo sida ay hadda wax u wado madaxtooyada Soomaaliya wariyaheena magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale noo xaqiijiyay in qof ka socda wasaaradda amniga uusan goobjoog ka ahayn munaasabadii lagu furayay macadka sare ee daraasaadka amniga ee laga furay magaalada Muqdisho xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sidoo kale kamid ahaa xubnihii sida weyn uga soo horjeeday xilka qaadistii Xasan Cali Khayre waxaanu ka soo muuqday kaamirada isagoo buuq ka sameynaya fadhiga baarlamaanka waxa uu ahaa wasiirka kaliya ee ka tirsan xukuumadda Khayre ee si shacsan u diiday xilka qaadista Khayre kuna dhiiraday in mowqifkiisu uu cadeeyo inkastoo ay jireen wasiirro ku fikir ahaa balse aan mowqifkoodu banaanka soo dhigin madaxtooyada Soomaaliya ayaa aad kaga carootay tallaabada Ducaale waxaana maalmo kadib xilka qaadistii Khayre soo baxay warar sheegaya in Ducaale xilka laga qaadayo waxaanay u badan tahay inuusan soo gali doonin golaha wasiirada cusub ee la soo dhisayo marka la magacaabo ra'iisul wasaare cusub wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa saaxiibka dhow ee ra'iisul wasaare Khayre waxa uu kamid yahay wasiirro fara ku tiris ah oo aan la bedelin tan iyo markii xafiiska u yimid Khayre markana Walaweyn gudoomiye ku-xigeenkii degmada Walaweyn ayaa gurigiisa lagu dhaxdilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ee dhanka maamulka iyo maaliyadda Maxamed Cabdullaahi Koosto ayaa xalay lagu dhaxdilay hoyga uu ka deganaa Walaweyn weerar ku bilowday rasaas kadib ay xigeen qaraxyo ayaa lagu qaaday guriga gudoomiyaha waxaana uu geeriyooday dhaawac daran oo soo gaaray sidoo kale waxay dhaawacyo kala duwan soo gaareen aabihiis iyo xaaskiis oo loo qaaday xarumaha caafimaadka ee degmada oo aan sidaas u lahayn tayo badan taliyaha booliska degmada waxa uu sheegay in raggii geystay weerarkaas ay goobta ka baxsadeen isla markaana hadda ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo lagu baacsanayo raggii falkaasi fuliyay wali ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas waxaanay magaalada Walaweyn wajahaysaa jahawareer amni oo kaga imaanaya maleeshiya beeleedyo iska argoosanaya iyo dagaalamayaasha shabaab
masar iyo etoobiyana waxay sare u qaadeen rajada aqoonsi ee maamulka somalilan loolanka loogu jiro in la kasbado somalilan ayaa garay meeshii ugu sarreysay iyadoo etoobiya ay safiir buuxa usoo diraysa magaalada hargeysa tani waxay ku soo aadaysaa kadib markii ay masar kor u qaaday qorshaheeda ay saldhig militari kaga samaysanayso somalilan horraantii toddobaadkan etoobiya ayaa uga digtay masar inay ka fogaato in saldhig militari ay ka samaysato somalilan kaasoo khatar amni ku ah geeska afrika fargelintan ayaa timid maalmo kadib markii wafdi ka socda masar ay magaalada hargeysa kula kulmeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi halkaasoo labada dhinac ay kaga wada hadleen soo jeedinta masar ee ah in saldhig militari ay ka samaysato somalilan weli lama oga in somalilan ay aqbashay soo jeedinta masar laakiin waxaa la sheegay in labada dhinac ay heshiis gaareen islamarkaana ay isdhaafsadeen wakiilla heerkoodu sarreeyo erga ka socotay dowladda etoobiya uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda axmed shide ayaa tegay magaalada hargeysa maalmo kadib booqashada wafdiga masaarida sida uu egyahay muranka somalilan waxay u muuqataa inay helayso faa'iidada ugu weyn iyadoo kordhinaysa baadi goobkeeda aqoonsi caalami ah oo riixaysay muddo 30 sano ah aqoonsi ay ka heshay etoobiya iyo masar oo ah cadowga ugu weyn ee qaaradda iyo qorshaha ay wada kenya waxay somalilan u horseedi doontaa in boos adag ay doodooda uga helaan midowga afrika dhexdiisa dhinaca kalena sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha ayaa xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga sihayaha ra'iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed ayaa xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga oo ah hay'ad tacliin sare oo dowladdu ay leedahay ujeedka macadka loo aasaasay ayaa ah kobcinta heerka aqooneed midka xirfadeed iyo ogaalka xubnaha laamaha amniga ee dowladda iyo in hoggaanka sare ee dalku ay helaan tala bixin iyo gorfeyn cilmiyeysan ee ku saabsan amniga qaranka mahdi maxamed guuleed waxa uu sheegay in furitaanka macadkan ay ka dhigan tahay tallaabo weyn oo loo qaaday hagaajinta amniga dalka waxaynu maanta si rasmi ah xariga uga jarnay macadka sare ee daraasaadka amniga oo daraasaad ku sameyn doona arrimaha amniga guud ahaan hadday tahay amnul qawmi maxay tahay siyaasadda amniga ee qarankeena arrimaha amniga ee istiraatiijiga ee qaranka Soomaaliyeed ay u baahan in la daraso in khabaradu ka doodo inay daraasaad iyo istidi ku sameyso tala bixin ay dawladna ka soo jeediyaan lagu tababaro aqoonyahanka Soomaaliyeed ee xirfadayaqaanka ah ee aqoonta u leh ama ha ka tirsanaadaan hay'adaha amniga ee laamaha amniga kala duwan ama ha ahaadaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo shahaadada digriga koowaad sita oo doonaya inay bartaan daraasaadka amniga wuxuu noqonayaa amniga inaga dal ahaan Soomaaliyeed ee qowmiga ah oo dhinacyo badan taabanaya ama xaq dhaqaale ama xaq nabadgelyo ama xaq amni oo guud ahaan ama xagga maxaa noqon kara national security interest waxaafka qalaad lagu yiraahdo danaha amni ee qowmiga ah ee umadeed maxay waxa kale oo lagu baran doonaa amniga gobolka mandaqadan geeska Afrika iyo sida inagu aynu isugu xiranahay ama ugu xiranahay ama amnigeena u saameynayso qaarad ahaan amnigeedu muxuu yahay iyo caalam ahaanba Soomaaliya iyo amniga qowmiga ay leedahay iyo Carbeed Afrika iyo dunida amniga xagga fikirka maxaa looga baran karaa aragtidan xaq jirka ah daraasaad dhinaca amniga oo ku saabsan iyadana sidee loo sameyn karaa waxa iman kara amniga cudurradan faafaya qudhood sidee bay amnigeena khatar ugu yeelan karaan maxaynu se uga kaashan karnaa marka arrimaha amniga iyo daraasaadkoodu waa ballaaran yihiin farxad weyn bay maanta markaa inoo tahay inaynu si rasmi ah u daahfurno in lagu odoroso in maskax Soomaaliyeed oo fikiraysa ay u fikirto dalkeena iyo amnigiisa sidaynu horumar uga gaari lahayn maanta dhibaatada ay haysataa waa mid amni koow caam ahaan labaadna mid amni oo ku salaysan amni xagga fikirka ah oo fikriga khaldan ee aragtida khaldan ee laga turjumada khaldan loo sameeyay islaamka arrimahaas oo dhan maanta in la odoroso la daraaseeyo si qoto dheer loo rogrogo dabeedna afkaar midhadhala hay'adaha dawladda ee amniga ku shaqada leh ay u soo baxdo hay'adaha kale ee dhinaca waxbarashada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo iclaamka iyo guud ahaan loo helo marka horumar weyn inuu sameeynay weeye inaynu maanta marayno macahad sare inaynu daahfurno oo waxbarashadiisii bilaaba oo arrimaha amniga qowmiga amniga qaaradeed dhinacyada kale ee kala duwan ee uu galayo lagu odoroso dad khubaro ah soo saaro hay'adaheena amniguna ay la mid noqdaan haddana waa yihiin la jaan qaadaan dunida qaybaheeda kale aqoon ahaan xirfad ahaan iyo kartin ahaanba
waxaan leeyahay hambalyo macadka waa hambalyeynayaa manhajkiisu sida lagu warbixiyay waa dhammaystiran yahay hadday tahay dhinaca wasaaradda waxbarashada fikir ahaan manhajku muxuu yahay iyo hadday tahay machadka saraakiishiisa iyo mas-uuliyiintiisa kala duwanba marka waxaan leeyahay oo guuriyo hambalyaan leeyahay waan idinku hambalyeynayaa aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shahaadooyinka koowaad iyo labaad iyo haysta ee danaynayaana ha ku soo dhiiradaan inay ka faa'iideystaan oo ay wax ka bartaan waa horumar iyo tallaabo dhinaca saxsan aynu ugu dambeynna shirkadda TikTok ayaa la timid xeelad looga badbaadinayo in laga mamnuuco Mareykanka sidoo qoray wargeyska New York Times shirkadda Microsoft Corp ayaa wadahadal kula jirta shirkadda ByteDance si ay uga iibsato abka aadka loo isticmaalo ee TikTok talaabadan ayaa qayb ka ah isku day lagu badbaadinayo abkan in laga mamnuuco dalka Mareykanka hanjabaada Trump ayaa timid kadib markii saraakiisha Mareykanka ay sheegeen abkan inay adeegsadaan sirdoonka Shiinaha sheegashadaas oo shirkadda ByteDance ay beenisay iibka TikTok ee Microsoft ayaa saameynaya oo kaliya qaybta abka ee dalka Mareykanka sidoo qoray New York Times wakaalada wararka ee Reuters ayaa iyana qortay in ByteDance ay shirkado kale oo Mareykan ah ugu yaboohday inay ka iibiso howlgaladeeda Mareykanka si shirkadan looga badbaadiyo in laga mamnuuco dalkaasi suuqa Mareykanka ayaa muhiim u ah TikTok waxaana la rumaysan yahay in abkan dalka Mareykanka ay ku isticmaalaan 100 milyan oo qof madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump ayaa sheegay Jimcihii in TikTok uu ka mamnuuci doono Mareykanka sida ugu dhaqsiyaha badan guud ahaan saaxiibayaal waa nageynta warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan kusoo biir oo subscribe saar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada ood ku mahadsan tahay inaad daawatay muuqaalkan